Ka hortagga iyo gudbinta xanuunka HIV. Xanuunka HIV ayaa waxaa lagu kala qaadaa sida galmo aan taxadar la'aan ah iyo galmada oo kala ah dhanka dumarka iyo rag isu galmooda iyo ragga inta badan isticmaala drugska. Gebi ahaanba waxaa lagu kala qaadi karaa xanuunka HIV-ga sida dhiig la isku shubo iyo hooyada iyo dhallaanka oo u gudbin karta xanuunka iyo weliba naas nuujinta. Haddii uu fayraska jirkaaga uusan ka muuqanin ama dhiigaagu ka muuqanin, micnaheeda ma aha ma qabtid xanuunka weli waxa uu ku jiraa unugyada jirkaaga ama dhacaankaagii. Meelaha uu ku dhuumaalaysto waxaa ka mid ah shahwada ragga, dumarka iyo dhacaanka dumarka, dhacaamada kale jirka iyo weliba naaska. Waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu qaadi karo xanuunkan waxaa ka mid ah adigoo u galmootay qof dumar ah. Dumarka ahaan waxa uu ku soo geli karaa isagoo fayraska yar uu soo maro unugyada taranka dumarka uuna u sii gudbi karaa CD4 si uu jirka ugu qaabilo xanuunka oo dhan. Isla ragga asagana waxa uu u soo maraa qaybta kaadimareynta isagoo soo mara qaybtaasi oona ka samaysto meel yar oo dhacaan uu ka helo si uu ugu gudbo qofka xanuunka jirkiisa kale. Sidoo kale waxaa xanuunka ugu khatarsan uu ku imaan karaa rag isu galmooda oona sababi kara midda ugu khatarsan ee waxyaabaha uu xanuunka ku faafa. Galmada isu galmooda labada nin ayaa lagu tilmaamaa sida ugu khatarsan oo ku faafi karo ka loo yaqaan kondomka haddii aysan isticmaalin. Labada qof oo isu galmoonaya waxa khatarka uu ku sugan yahay waa meel yar ama dhacaan ka imaan kara jirka qofka bini'aadamka oona u soo gudbin kara xanuunka si toos ah jirkiisa kale isagoo u soo maraya kaadimareenka qofka ragga isagoo ku samaysan kara xanuunka si uu ugu gudbiyo qaybaha kale ee jirkiisa. Sidoo kale waxaa khubarada ay sheegeen in xanuunada laga qaado galmada aysan ahayn kaliya xanuunka HIV. Waxyaabaha ugu horumarsan ama ugu waaweyn oo liskaga ilaalin kara infectionkan la yiraahdo HIV ayaa waxa ugu horeeya in aad ka fogaatid galmo. Khubarada waxa ay ku waaniyaan dadka isticmaalaya galmada in ay iska ilaaliyaan aanan ahayn mid taxadirsan, laakiin waxa ay ku wacyigeliyaan in ay isticmaalaan cinjirka la yiraahdo kondomka iyadoo inta badan ay diinteen aysan ogoleen in ay isu isticmaalaan ama ay u isticmaalaan galmo xaraan ah. Waxayna ku micneeyaan in kaga hortago sidii uu xanuunka qofka kale u soo gudbi lahaa cinjirkan la yiraahdo kondomka haddii uu qabo xanuunka qofka kale uu u galmoonayo qofka kale. Waxayna ku micneeyaan in uu ka taxadiro xubinta taranka ragga si uusan xanuunka u soo marin una ugu soo qaadin qaybta taranka dumarka una ugu soo gudbinin dhacaanka jirka oo qaba fayraskaasi. Sidoo kale waxa uu ka taxadiraa xanuuno fara badan oo lagu kala qaado galmada. Sidoo kale waxaa lagu wacyigelinayaa dadka xanuunka qaba in ay si aad ah u isticmaalaan qaadashada daawooyinka loo yaqaan ART. ART lagu macneeyaa antiretroviral treatment oo loogu talagalay dadka bukaanada xanuunka qaba maadaama uu yareynaya khatarta uu ku saacidin lahaa ama uu gudbin lahaa qofka kale iyadoo lagu macneeyay daawooyinkaas in ay yihiin daawooyinka ugu horumarsan ee xanuunka la dagaalami kara qofka intixaad. Daawada ART la yiraahdo waxa ay yareysaa faafitaankii uu u gudbin lahaa qofka iyadoo ay kala dagaalami karto inta badan qofka fayraska jirkiisa uu ku jiro ay sii yareyn karto inta uu daawada u qaadanayo. Daawadan ART loo qaato xanuunka HIV-ga ayaa waxa lagu micneeyaa haddii aad qaadatid in muddo ah iyadoo ay ku tilmaamayaan khubarada in ay hoos isu dhimi karto 96% ee gudbinta xanuunka aad gudbin lahayd. Mecrotonin cream la yiraahdo ayaa waxay ku tilmaamaan haddii aad marisid xubinta taranka dumarka in ay waxyaabo badan ay kala dagaalami karto fayraska naftirkiisa inay dili karto si ay iskaga ilaaliyaan xanuunka uu jirka ku soo geli lahaa. Waayna ku adag tahay qofka daawada isticmaalo in ay fayraskiisa uu kor u soo kaco haddii uu isticmaalayo daawadaas iyo creamkaasi si uu ugu taxadiro fayraska dib u soo geli lahaa jirkiisa ama uu gudbin lahaa qofka kale. Post exposure and prophylaxis waxaa lagu magacayaa ka hortagga xanuunka HIV sida qofka u galmooday ama waxyeelo ka soo gaaray. Post exposure waxaa lagu micneeyaa in ay tahay daawo anti-HIV drug oo ka hortagi karta xanuunka HIV oo la dagaalami karto si uusan jirka u soo gelin xanuunkaasi.
si waxay ula dagaalamaysaa si xanuunka ama ay u yareyso xanuunka si ay ula dagaalanto si ay u hirgasho la dagaalanka ay daawada sameynayso waxaa loo baahan yahay in 72 saacadood gudaheeda oo loo siiyo daawada anti HIV drug la yiraahdo oo lagu magacaabo PEP intuusan bilaawin viruska si kastaba PEP laguma macneyn karo in uu si xawli u shaqeyn karo ama uga hortagi karo xanuunka 100% waa daawo percentageeda uu marna koreyn karo marna uu hooseyn karo pre-exposure prophylaxis oo loo yaqaano PrEP waxaa lagu macneeyaa in ay tahay qof ku jiro khatarta ku imaan karo HIV waa daawo uu qaadan karo qofkaasi waxaana lagu macneyn karaa in ay qaadan karaan daawo oona la micno tahay anti HIV drugs uu qaadan ka shakhsiga maalinkiiba hal mar run ahaantii waxa uuna ka hirgalay wadanka Mareykanka nidaamkan cusub ee loo yaqaano PrEP run ahaantii waxa uu taxdiri karaa ama uu la dagaalami karaa xanuunka intuusan jirku soo gelin waxa uu hoos u dhimi karaa 44% uu la dagaalanka dhanka xanuunka si uu jirka ugu taxdiri lahaa ama uga hortagi lahaa xanuunka intuu soo gelin isla weli ma caddo in uu yahay PrEP midka kaliya hirgelinaya in uusan xanuunka jirka soo geli karin mana la cadeyn karo waxayna khibrada ku cadeeyeen in dadka isticmaalaya galmada aan sharciga ahayn ama waxayna ku sheegeen in haddii uu daawadan PrEP uu si toos ah u qaato in ay kordhinaysa difaaca jirkiisa si uusan xanuunka ugu soo gudbin qofkaasi isla weli waxaan ku sheegaynaa ama aan ku qeexi doonaa cutubkan hadda aan idin soo gudbin doono kaliya inuusan ku imaan karin xanuunka galmo iyo waxyaabo kale la mid ah oo weli ku imaan karo dhig lagugu shibo waxaa kale oo ku imaan karaa in aad isla isticmaashaan cirbad oo ka mid ah dadka inta badan ay isticmaalaan cirbadaha drugska waxayna ku tilmaamaan in ay wadato hashi cirbadaad isticmaashid in ay qayb ka mid ah dhiigga qofka xanuunka qaba oo ay ku harayso gudaheeda xanuun ayna khatarna ku tahay sidii xanuunka ugu gudbo qofkaasi xanuunka HIV waxa weli uu ku gudbi karaa isticmaalida la isticmaalo cirbadaha iyo weliba habeenta ama qasida daawooyinka lagu isticmaalo iyo qaadooyinka aan daawada aan ku soo bixino shayadaasi oo dhan waxay halis u yihiin in ay gudbiyaan isla suufka aad isticmaashay haddii aad haddana dib u isticmaashid qof kale in ay khatar ku tahay in ay u soo gudbiyaan waxyaabaha aan hoos ku soo sheegnay oo dhan si aad waxyaabahaasi dhan ugu taxadir si aad ugu isticmaashid bukaankaas waa in aad ka bedeshaa bukaanka kale cirbada kale xigto oo nadiifka ah